gabar wanaagsan ayaa waxa ay guursatay nin u muuqda inuu wanaagsan yahay aadna u qurxoon. Noloshu waxa ay u muuqatay in ay wanaagsan tahay, ninkeedana waxa ay ula dhaqmi jirtay si wanaagsan. Sanado kadib, ninkii waxa uu bilaabay in uu ka fogaado islaanta uu qabo. Waxa ay isku dayday in ay u soo dhawaato ninkeeda una samayso wax walba uu rabo, ayadoo ku camal falayska xadiidka Nabiga sallallahu alayhi wasallam ee ahaa: haddii naagta shanteeda tukato, bisheeda soonto, farjigeeda ilaaliso, ninkeeda adeecdo, waxaa lagu dhihi albaabkaad rabto jannada ka gal maalinta yawmal qiyaamo. Laakiin ninka waxa uu sii joogtay ka fogaanta uu ka fogaanaya naagtiisa, isaga oo si walba isku dayay si uu uga fogaado naagtiisa. Naagtii gacmaha ayay cirka u taagtay ayadoo Alla ka baryayso inuu qalbigiisa marun u soo jilciyo. Maalin ayadoo gurigeeda joogto ayaa waxaa u soo dhacay fariintaasoo leh: ninkaada uu ku garaasanayaa naag loo jecel yahay, haddaad sharaftaada rabto gurigaas iskaga tag ay ku roonta. Haweeneydii fariintii ayay tuurtay, waxa ayna qarisay arrintii, waxa ayna isku dayday in ay gaarto yoolka inuu ninkeeda khiyaaniyo iyo in kale. Isla markiiba waxa ay wacday naag uu qabo ninkeeda saaxiibkii. Ninkeedana waxaa lagu yaqaanay akhlaaqda fiican iyo dabeecadda fiican. Dhanka kale, naagta waxa ay ahaayeen saaxiibo isku fiican. Waxa ay ka codsatay saaxiibteed inay u imaado, waa ayna u imaaday. Ka hor inta aynan arrinta furin, waxa ay ka dalbatay in ay masquul aado, waa ayna laakiin nasiib darro waxa ay ka tagtay taleefankeeda. Waxyar taleefanka markuu yaalay, taleefanka uu soo dhacay, lambarka soo wacay waxa uu ahaa lambarkii ninkeeda. Ayadoona ku jarin taleefanka ay ka qabatay, waxa ayna dhageysatay hadalkiisa. Waxa uu lahaa: xabiibi, waxaan kuu imaanay caawa. Kadib waxa ay ogaatay khiyaanada uu ku sameeyay ninkeeda iyo weliba khiyaanada uu ku sameeyay ninkeeda. Waxa kaloo ay ogaatay in islaantii fariinta u soo direysay inay ahayd ayada. Kadib markii uu imaaday guriga, waxa ay ka dalbatay furniin, isla markiiba kuma adkeynina, asagina waa uu furay. Naagtii isla markiiba waxa ay ku laabatay cidooda, waxa ayna soo raadisay ninka, waxa ayna ugu sheekaysay arrinta dhaxmartay ayada iyo naagtiisa. Isla markiiba ninkii naagtiisa ayuu u yeeray, waa uuna furay. Maalmihii ayaa isdaba maray, naagtii ciddada ayay ka baxday, ninkiina naagtii wanaagsaneed ayuu guursaday. Guurkoodina waxa uu noqday guur wanaagsan. Ninka waxa uu ahaa nin dabeecad iyo akhlaaq Alla ku manaystay, ayadana waxa ay ahayd naag diin leh oo sharaf badan. Labadii khiyaanoona sidii ay guurkoodii ku waayeen. Weligaa ha aaminin qof khiyaamo badan, waa munaafiqiinta calaamadahooda ayuu soo gelayaa.